Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaamay walaalahay sida u dhantihiin. Maantay waa aragteen dhisaynkan videogan mar kale ayaan kusoo celinaya waayo markii hore aan idin soo duubay habeen ayay ahayd abaayooyin badan ayaan waxay dhaheen abaayo kalarkan kalarkee oo kalarka uu yahay videoga ayaan wax badan ku sheegay waa maroon ama burgundy kalarka la dhaho ama beerbeer qof bas u yaqaano waaye actually qaxwo ma ahan gaduudna ma ahan okay qaxwana ma ahan gaduudna ma ahan soo marka maantay markii aan hagaajinayay oo qolka markaan soo kacnay subax alxamdulillah on iska yaraha hagaajinaya ayaa waxa igu soo dhacday daaqadaha markii aan sidan u furay kalarkiisa hadda ayuu si natural qurux badan u muuqdaa soo marka abaayooyinkii ku weydiinayay kalarka uu yahay ku wareersanaa ka waran haddii hadda aad usii duubtid oo aad tustid kalarka uu yahay soo marka videogan waa ramadaankii saas kugu diyaarinay anigii abaayo maama loo sameynay waan soo geliyay oo ay tahay markaas aniga waxaan duubay habeen ayaan duubay ay ahayd marka waa kana maalinkii siduu u eg yahay qolka kalarkan waa kaas ka ujeedin burgundy la dhahaa waa kalarka matqaana beerbeerka ah ay gaduudka dhiiga aan ahayn qaxwahan oo kafee kalarkiisa aan ahayn waaye marka saa ujeedin laba barkin ayaa beerbeerka ii ah iyo geedka yar oo throw blanketka geeska ii saaran gadaal waxa ii yaalo barkimaha waaweynka oo barkimaha beeshka ah waxa kusoo xigto saddex kale oo yaryar oo beej ah kadib waxa ii saaran labada waaweyn oo cadaan caadi ah labada burgundyga ama beerbeerka qofka si u yaqaana ah iyo xabada ugu soo horeyso barkimaha xataa waa la i weydiiyey barkimaha kuwa u dambeeyo waa barkimaha caadiga oo waaweynka oo sariirta kuwa ku xiga waa barkimo 40x40 ah oo aad u yaryar kuwan waaweynka waa 65x65 barkimaha ah kuwan hadda ugu soo horeeyo oo burgundyga ah waxaa waaye 50x50 barkimaha ah midda yar oo ii taalna waxaa waaye 30x50 soddon lagu dhuftay konton ka mid ah marka ay hubina ay fahanteen barkimaha sayskooda aad ayaa la ii weydiiyey abaayoon badan snapchatka instagramka iyo tiktok intaba aad iiga weydiiyeen plus kalarka oo matqaana uu yahay kalarka uu yahay waa sheegay videogan waa lagu arkayay laakiin ma aqaani abaayoon badan xoog ii weydiinayeen soo marka kalarka waa ujeedina umaleynaa hadeertaan ma si fiican u arkaysi soo ma ahan teeda kale kalarkan kalar cusub ma aha waa kalar aan qolkayga fadhiga mar hore kusoo isticmaalay oo video aan idinku soo tusiyey it's not something new ama oo hadda igu cusub hadda soo iibiyey ma ahan waa ujeedin dee dhinac walba idinka tus kara idinka tusuda walaalay waa arkaysa soo ma ahan the only thing aan sameeyey waxaa waaye waa ii furan daaqada and then video caadi oo kaamira lagu duubayo ku duubay oo mobile kaamiradiisa ah wax kaleeto yacni ma ku sameynin sida arkaysiina waa kaas ujeedin waa barkimo oo macni oo burgundy beerbeer maroon qof bas u yaqaano gaduud ma ahan qaxwana ma ahan walaalisa ujeedin waa kalarkaas idiin sheegay throw blanketkiisana waa noocaas barkimahan hadda ayaa arkaysa iigu saareen waa laba barkin oo beej ah midda ku xigto oo yariiska ah labadan waaweyn labadan oo yaryar oo isku eg oo gaduudka islana eg iyo midda yar oo faqadka ugu horeyso waa isfahanay soo ma ahan walaalahay intaas waa hadda inta oo meesha inoo saaran marka waa kaasa inaad si fiican u wada arkaysiin ayaan idin rajaynayaa walaalahay oo si waadax ah aan idinkugu duubay waxaan isku dayay sida ugu fudud aad kalarka si fiican ugu arki kartiin inaan idinkugu duubo waana sameeyey waa kana waa ujeedin hadda barkintaas kalarkeeda idinkama dhumaayo soo ma kalarku yahay si fiican idinkugu muuqataa si ani u arkooyo waaye adinkan I hope inaad saas iila arkaysiin waayo ani waxaa u arkaa inay yahay kalarka oo saxda ay u muuqda hadda
daaqada caadi noogu furo si caadi ah waa arkaysiin u maleynayaa hadda xoogay winterkii anaga sii dhamaanayso maragaloona hadduu ilaahay idmo samarka maasha allah qurux iyo wuxuu wataa kuleyl iyo waxaa kaloo iftiin maasha allah laga sheekeyn karin marka waan kana iftiinka aan maanta wax idinkugu duubayo waaye alxamdulilah oo aan isdhahay abaayooyinka bal oo ku weydiinayeen waxaa si fiican bal the best way wax ku tusin kartid ku tusi kalarkii aan isticmaashay oo ramadaanka isugu diyaarsane sida uu subaxi kusoo baxayo abaayooyinka tusi waayo anasa idin sheegay markii horeba wax cusub maan soo iibsanin wax kaleeto gooni maan sameynin wixii guriga ii yaalo qolkaygan deep cleaning ku samaysto oo hagaajiyo dhaqday then mataqaanaa waxaan sameeyey waxaan soo isticmaalay dhar kalaro oo guriga ii yaaleen bes marka walaalahay markii aan qolka deep cleaning iskaga sameynaa waa rab inaan idil soo socodsiiyo oo mataqaanaa aan video inkaaga duuba laakiin intii ilmaha oo iga jireen xanaanada ayaan ka faa'iideysanayay markii oo aan hagaajiyay markaasna markii aad wax duubaysane waqti ayay u baahan tahay somaha waqti badan inaad gelisid marka maadaama xanaanada inta caruurta iga jireen aniga dhan aad ka faa'iideysanaa waxaan isdhahay iska dhaaf abaayooyinka markii aad hagaajisid uun u duub muhiimada update-ka aad soo samaysay inaad uga faa'iideysid waaye soo marka abaayo walbana kuleydii abaayo gurigeeda hagaajini malaha sooma markii ay hagaajiso bay wax soo habaysataa ay wax kalar bedelataa marka anigana saas darteed ayaan idinkugu soo sameeyey waa ujeediin kalarka sida saxda uu muuqdo xiliga maalinka aba aragtiin soo ma ahan barkimaha iyo wax dhan ayaan idin tusinaya hadda marka walaalay sababta aan video markaan deep cleaning sameynaa ama google aan idinkugu duuban waxay ahayd inuu waqtiga ugu yaraayo oo aniga dhanba aan waqti yar ka faa'iideysana inta ilmaha ay iga maqnaayeen waayo marka ay imaadaan ilmaha intii aan rabo aniga kama mashquuli kari in yar kooban baan ka mashquuli karaa maadaama marka iga imaadaan daycarekii ama xanaanada ay u baahan yihiin inaan dharka ka bedelo inaan soo dhaweeyo guriga ay imaadaan mataqaanaa cunto aan siiyo hadday gaajeysan yihiin wixii maanta soo qaldamay wixii soo saxmay waxyaabahaas oo dhan aan la socdo marka ma karaayi in aan intaa cunto bis soo siiyo aan kasoo cararo aan video iska duubto inuu ilmaha xaquuqay leeyihiin soo maahan marka sababtaas ayaa keentay in aan markii aan hagaajinay aan duubin laakiin markii aan soo hagaajiyey aan idin duubay waana kana videogii aan mataqaana aan kugu talagalay asagoo habeen waa idin soo geliyey su-aasha markii ay badatana waa kana asagoo oo mataqaana maalin cad ayaan soo geliyey inaad aada uga faa'iideysatiin ayaan rajeynayaa walaalahay waayo wixii la weydiiyey waxaa jeclahay hadiiba markaas aan awoodo si wanaagsan oo dadka ay ka faa'iideysanayaan inaan uga soo jawaabo waa haddii aan markaas awoodo haddii aan awoodin hadda maba awoodi soo ma aha walaalahay markaana waqtiga ayaa ii saamaxay saaka markii aan qolka iska hagaajiyey oo waxa dhan aan iska sameeyey daaqadaha aan furfurtay waxaas dhahay maasha allah qorax fiican way jirtay waxaas dhahay marka abaayooyinka ku weydiinayay hadda ayaa yacni ugu dhex tuuri kartaa wax yar video aad uga duubi kartaa si ay u arkaan qolka sida uu ku yahay maalinta cad iyo kalarka saxda ay barkimaha ahaayeen marka walaalay qaali waxaan idin rajeynaa video ka hesheen hadda video ka hesheen commentiga hanaga iloobina like sidoo kaleeto share tana noogu sii dara subscribe tana hanaga iloobina mac salaam